الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الأشربة وفي الحد المتعلق بشربها. fasalkani wuxuu ku saabsan yahay fi axkaami alashriba, waxyaabaha la cabo ee xaaraanta ah. waxaynu u nidhi xaaraanta ah waayo axkaamta cabitaanka halkan kaga hadli maayo, waxyaabaha in la caba ay xaaraan tahay ayuu kaga hadlayaa. walihaada buu daba dhigay wa fi lxaddi almutacaliqi bishurbiha, iyo waxyaabaha la cabo ee xaaraanta ah ciqaabka la xidhiidha ee ka dhalanaya cabitaankeeda. marka alashriba waa jamcu sharaab, waa sharaab oo la jamciyey. saynu sheegnayna waxaa looga jeeda alashribatu almuxarama, sharaabyada xaaraanta ah, khamriga iyo waxaa la midka ah. waman shariba buu ihi qofka caba, inuu cunaano waa la mid. khamrigii haddii la fadhiisiiyo oo ice cream oo kale laga dhigo ama baraf oo kale oo la cuno, in la cabo ayuunbay la xukum tahay. waxaa ka xukum duwanuun haddii uu xagga dambe iskaga shubo. qofka cabana halka waxaa looga jeedaa qofka mukalafkaa, qaangaadhkaa ee miyirka qaba, isla markaana multazim lilaxkaam, qof axkaamta islaamka in lagu fuliyo isagu ogolaaday, oo dee muslima oo islaamnimadiisa ku ogol amaba se heshiis ku ogolaaday, kaasina waa dimiga weyi. ninka la dhahdo mucaahidka iyo mustaaminku iyagu axkaamta laguma fuliyo, waayo iyagu heshiis kumay gelin axkaamta islaamka in lagu fuliyo. isla markaana garanaya xaaraannimada khamriga, isaga oo ikhtiyaarkiisa ku cabayna oo cid aan lagu khasbina arrintaasi ay dhacday, daruuro u geysanaani jirin. marka dimigii oo kale ma lagu xadaynayaa kii yahuudiga ama kiristaanka ahaa cabitaanka khamriga? jawaabtu waa maya, liannu laa yactaqidu xurmata, inuu xaaraanye ma aaminsana. axkaamta islaamka ee lagu fulinayaana oo waxa iyagu ay diin ahaan u aaminsan yihiin xaaraannimadiisa. khamran caba, markaa khamri waa maxay? wax kastoo lagu sirkhaamo miyaa khamri la idhaahdaa? abu shujaac wuxuu yihi khamri, laakiin aw sharaaban caba muskiran, oo labadu kala qaaday, khamri iyo sharaab lagu sirkhaamo. marka sharaab kasta oo khamrigu sharaabka lagu sirkhaamo ayuu ka mid yihi. laakiin waxaa isweydiin leh, sharaab kastoo lagu sirkhaamo miyaa khamri la idhaahdaa? maya, waa kala duwan yihiin buu yihi. wahiya khamradu almutakhadatu, ta laga samaysta weeye min casiiri lcinabi, canabka midhaha la idhaahdo oo la miiray waxa laga sameeye weeye. taasaa magaca khamri gooni u leh, ee wax kastoo la cabo lagu sirkhaamo khamri lama idhaahdo. waxaana khamri loogu bixiyey dee caqligay dabooleysa. haddaba waxyaaba aan laga samayn cinab la miiray, magaca khamri ma loogu yeedhi karaa oo ma lagu sheegi karaa? waa lagu sheegi karaa, ee magacaasi ma xaqiiqu ku yahay mise majaas buu ku yahay baa la ysku khilaafay. akharu ahli lcilmina waxay idhaahdeen xaqiiquu ku yahay, waana culimada banaynaya alqiyaas fi luga, oo luqadu qiyaas ma ku sugnaata. maala muudka
cinabka ee lagu sirqaamayo maxaa magacaa khamri loogu bixiyey waa inuu caqligii iyo maankii doorinaya sooma sababtaasu magacaa ku yeeshay marka waxaa xagga magac ahaan looga qiyaas qaadanayaa oo magacaasoo kale loo bixin karaa wax kastoo isaguna lagu sirqaamayo masaladaasina waa masalo macluuma fi usuuli اlfiqh alqiyaas hal alqiyaasu yadkhulu fi اlluga kolley khilaaf baana ku jira laakiin saas ayaa loo badan yahay axaadiidtuna waxay tilmaamaysaa xagga sharci ahaan shay kastoo lagu sirqaama magaca khamri inuu leeyahy oo kullu muskirin khamru buri rasuulku wa kullu khamrin xaraam wax kastoo lagu sirqaama waa khamri khamri kastana waa xaaraan aw sharaabana macaba sharaab muskiran wax sirqaaminaya markaa muskir bilficli oo marka la cababa waa lagu sirqaamaya ama waa muskir bilquwa oo waa in yaroon lagu sirqaamayn laakiin intiisa badan baa lagu sirqaamaya markaa markuu leeyahy muskiran bilficli aw bilquwati labadu way soo gelayaan oo kulu sharaabin askara kahiiruhu faqaliiluhu xaraam wax kastoo la cabo intiisa badan lagu sirqaamayo intiisa yareen lagu sirqaamahaynina waa xaaraan waa si albaabka loo xidho weeye min gayri اlkhamri oo aan khamri ahayn sharaabka muskirka oon khamri ahayn bimacnaa casiiru lcinab mid laga sameeye aan ahayn wadalika ka nabiidi weeye waa sida nabiidkii almutakadi ah mid laga samaystay min azabiibi laga sameeyey zabiib dee zabiibtii cinabku way kala duwan yihin zabiibtu waa intaay midhaha uu yahay aanu qalalin zabiibtuna waa markuu qalalo ama timir laga sameeyey ama rutab laga sameeyey ama heed laga sameeyey ama hadhuudh laga sameeyey ama arabiki laga sameeyey almuhim waxaan casiiru lcinaba in haddii laga sameeyo oo lagu sirqaamayo intiisa badan waa sharaab muskira magaca khamri bayaanu qaadane yuxaddu waa la xadaynayaa buu yihi oo xad baa lagu dhufanaya jeedal baa lala dhacayaa ama ul baa lala dhacaya dhexdhexaada xawdh yarna aan ahayn budhna dee aan ahayn mid aada u qalalay aan ahayn mid aada u qoyanna aan ahayn waxaa la mida kabaha iyo maryaha darafyadoodii waa lala dhici karaa suu yihi anas bin malik kaana yudrabu biljariidi wanicaal laanta timirta ama geedka timirta ulihiisa iyo kabahaya baa lala dhici jiray abu hureyrana wuxuu yihi famina man daraba biyadi wamina man daraba binacli wamina man daraba bithawbihi nin sirqaamay baa rasuulka loo keenay rasuulku wuxuu amray in la garaaco qaarkayo gacantooday ku garaaceen oo dhirbaaxay ku dhufanayeen qaarna kabahooday ku dhufanayeen qaarna maryahooda ayay ku garaacayeen marka meel qurana lagaga wada dhufan maayo afartanka jeedal uu sheegi doono ee meelo kala duwan baa lagaga dhufanaya meelaha halbowlayaashee loo dhintana lagaga dhufan maayo wejigana laga garaaci maayo waayo rasuulkaa yidhi idaa daraba axadukum falyataqi lwajh midkiin hadduu cid garaacayo wejigaa iska ilaaliyo gacantana madaxa dushiisa lama marinayo oo madaxa dusha laga marin maayo waay daalika shaaribu baa la xadaynayaa kaa cabay waxaa lagu sirqaamo in kaana hadduu yahay xuran goorma la xadaynaya isagoo sirqaansan maya waa marka uu maankiisu u soo noqdo waayo dee waxaa la rabaa in la xanuujiyo xanuujintaasi ay ka celiso inuu mar dambe khamri cabo isagoo sirqaansan haddii la garaacana dee dareemi maayo in kaana hadduu yahay xuran mid xoroo xornimadiisu dhammaystiran tahay 40 jalda baa lagu dhufanayaa 40 jeedal oo inuu xad lkhamri 40 yahay shaaficiyada la gaara mufradaat ulmadhab bay ka mid saddexda madhabe kaleba waxay qabaan 80 shaaficiyadu waxay daliishadeen xadiidkii anas kaana nabiyu yadribu fi lkhamri biljariidi wanicaali 40 xadiidka markaa tilmaamaya 80ka waxay leeyihiin inta dheeraadka ee 40ka kale waxay ahayd tacziir bay ahayd bay leeyihiin taasina markaa de waxay tusinaysaa in
la ziyaadin karo xadkii in ziyaado tacziira lagu dari karo qofka intii xadka ahayd marka lagu dhufto in dheeraadoo tacziira in lagu dari karo waana mid ay saxaabadu sameeyeen oo ninkii maalin rabadaan khamri cabay cumar ibnu khataab markuu xadeeyey haddana ciqaab dheeraadaba ugu daray way xurmatu nahaar ramadaan buu intihaaku meel kaga dhacay wain kaana hadduu yahay raqiiqan addoonna 20 jalda 20 jeedal baa lagu dhufanayaa wayajuusu waa tale waxaa bannaan an yabluqa inuu la gaadho ama uu gaadhsiiyo alimaamu imaamku bihi ay xaddi shurbi xadka iyo ciqaabka qofka khamri cabaa 80 inuu gaadhsiiyo 80 jaldatan jeedal ka ahaatay sida asaxee mansuuska ah oo saxaabaduna ridwaanullahi calayhim ay ku ijmaaceen waxay uga qiyaas qaateen xadulqadfiga waziyaadatu kordhinta calaa 40 afartan laga kordhiyey fii xurin qof xora marka lagu dhufanayo wa 20 20 in laga ziyaadiyo fii raqiiqin mid addoona marka lagu dhufanayo calaa wajhi tacziir qaab casiraada iyo ganaaxisa mid u dhacaysa weeye oo cali wuxuu uhi jalada nabiyu 40 qofkii khamri cabay rasuulku 40 buu ku dhuftay wajalada abubakrin 40 wa cumaru 80 cumarna 80 buu ku dhuftay wa kullun sunna dhammaantood baan waa wada saxa wahada axabu ilaya yani 80 in lagu dhufto saasaan jecelay oo haddii dee 80 uu xad ahaan laa waxay leeyihin dee lagama tageen oo rasuulku calayhi salatu wasalaam 40 kamuu dhigeen wuxuu uhi waqiila waxaa la yidhi aziyaadatu ziyaadada calaa maa qadarkii laga kordhiyo dukira la sheego 40 ah fii xaqi lxuri iyo 20 fii xaqi raqiiq xadun weeyi ida lafteeduna waa xad وعلى هذا marka wax lagu dhiso qowlka oranaya xadku waa 80 ee 40 un maaha binaan على هذا القول يمتنع waxaa mamnuuc noqonaysa midaan la ogolayn النقص عنها 80 in laga yareeyo li xadka lama dhimi karee ويجب وواجب يا بوري الحد حدكي عليه على أي شارب المسكري كعبي وحل قصر خامه حدك وكوا تشبيه خبري عن نقضة ما وحكى لا نقضة هسر خامه أما يانو سر خامن إنه سر خامه شرط ما إنه عباء يوم شرطه بأحد أمرين لبا الريموت متكود أيو كوا تشبيه متكود مركا ليالو بالبينة تبو كوا تشبيه عدين مرخاتيال أي رجلين برجلين بشهادة رجلين لبان مرقود بو حد كان كوا تشبيه لبضان إنه يشهدان مرخاتي كالنقضة بشرب ما الشيء قف كرينو عبي ذكر الشيء ومسكر كاه وحال قصر خامها كسر خامه يتسوق ميان كسر خامه وحكى الله ماذا يشهدان على إقراره بشرب المسكري markuu cabay anagu ma aan arkayn bay yiraahdeen laakiin waxaanu markhaati kana inuu qirtay inuu cabay wax lagu sirqaamo iyaduna waa la mid awil iqraari buu ku sugmaya xadkani qirasho min ashaaribi xaalo qirashadaasi ka cabay ka sugnaatay bianahu shariba oo qirtay bianahu isagu shariba inuu cabay muskiran isaga sidaa qirtay sharibtu muskiran buuri wax lagu sirqaamaa baan cabay فلا يحد لما حدين يو كي واحد لغو سرقا مع عبي بشهادة رجل لغو حدين ما ينين مرقي وامرأة قبط نين يقبط وكذلك بشهادة رجل وامرأتين نين يلبضوا مرة لغو حدين ما ين ولا بشهادة امرأتين لبضوا مرة مرقودنا لغو حدين ما ين ولا بيمين نارنا لغو حدين ما ين مردودة لغو عشدين tusaale ahaan qof baa yidhi qofkani khamri buu cabay markaasuu yihi maan cabbin
ku dhaaro buuhi inaanad cabbin may aduu ku dhaaro buuhi inaanad cabbin aduu ku dhaaro markaasuu ku dhaartay inuu cabbay waad cabtay buuhi يعني حد كواتي مايو بسبب هذه اليمين المردودة اليمين المردودة درس حاله waxaan ku sheegnay qisaastu inay ku sugnaato Soomaa marka xuduudu kuma sugnaato farqi baa u dhaxeeya في اليمين المردودة marka laga leeyahay dhaarta qofka lagu ceshaday qisaastii xuduuda farqi baa u dhaxeeya wala بعلم القاضي ina ku sugnaan maayo qaadiga iyo garsoora ogaalkiisa qaadigii baa arkay isagoo cabaya ogaalkiisa kuma xukumi karo والقاضي يقضي بعلمه أصل كواسدة قاضي وحسقوا أوجيهاي مرخاتية حين لكان وبعد علمه يسقو حكومي كراه لكن يستثنى من ذلك الحدود حدود يدو كما تلتو حدود علمه يسي وقال كيسا كما سوي كراه ولا بعلم غير عد كلو قال كيدنا والقاضي هاينا ما ولا يحد لما حدين أيضا كنا قرشة الشارب كي عبي وحلقوس الخابة بالقي بسبب القي إنه خمر متجي سبب تدلو حدين مايو يولي استنكاي خمرين وكسر أوري بأن يشم إن لقى أوريه ويستنكاه منه يسقى رائحة الخمر إنه خمر متجي إنه خمر كسر أورين لقى حدين مايو وايو ده واحد عكرته إنه كخل ضمي خمر كسر أوريه أما هو متجي أما يلقى خصبي أما وحويان أن يكون شرب الخمر ناسيا مركز الشبهة هل كطالة والحدود تضرب بالشبهات حدودنا الشبهات والقري حايو مرة الشبهة ما إيش الطالة الشبهة هذا نقطة في الفاعل أما في المفعول أما في الطريق صدق هذا هو يقشى الشبهة فاعل كي يقشى مفعول كي يقشى طريق يقشى وضد الشيء قصهم حدك والغو باتشيا شبهاتك حديثكم مرفوعا ومؤنصحين لكن ووح صحابة كسقنا هذا فصل في أحكام قطع السرقة فصل كانوا يحكوا سابسية هاي أحكامتا قعن قوين تسبب تيدو أي تهاي حديثان قفك وحوحضي في أحكام القطع الذي سببه السرقة ساوي ينفصل كم عنيس قاعن قوينتا أما قوينتا اللي لقبا بلا شركة راي قوينتا أي سبب تيدو طهي إنه قفك وحضي من باب إضافة الشيء إلى سببه وقطعه أي لون نسبة السرقة وهي السرقة إذا صابها إلى عباد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما nimanka munaafiqiintu sida duruus hore baynu ku sheegnay hadee jaraalo waxay ka hor iman jireen oo la murmi jireen ahkaamta ilaahay ee qadariga munaafiqiinta casrigan iyo mulxidiintuna inta badan waxay la murmaan ahkaamta ilaahay sharciga kuwii hore ee la murmay waxa kamid ah Abul Alaa al-Mu'arri oo mulxid buu ahaa wuxuu gacan magteedu ay tahay 500 oo diinar marka macna geel la waayo way sideeba rubcu diinar marka xad loo jaraya buu yadun bi 500 asjad wudiyat ma baaluha qut'at fi rubcu diinar gacan magteedu laga dhigay 500 oo diinar oo dahaba maxaa dhacay rubcu diinar loogu jaray buu كاسو أرنتا تناقض بكرة وحسك لبدا حكومة سكوري من ياموري القاضي عبد الوهاب المالكي باوتش وابو حوري وقاية النفس أغلاها إلى النفط إلى يا قالي السي ومكتدي شنب قولوا الدينار كدكتي وأرخصها وقاية المال إلى المال كلا إلى يانا مد شبان كدكتور رخيص الدينار يعني مرنا نفط إلى مرنا مال كلا إلى ففهم حكمة الباري وحكمة إلهي فهم سيكلا والله وريه عز الأمانة أغلاها
sharafta ay amaanadu leedahay baa qaaliyeysay ولما كانت أمينة كانت ثمينة قعن آمن وحبان حد مركا هيد قالبة هيد وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري دلقا كذا الشيء خيانة ذا السميسي يو حديث أي الرخيص كذا ولما خانت هانت مركا وحده وخيانة يسوي مثل رخيص وقيمة شبه نقط وهي بوري السرقة لغة في لغة العرب أخذ المال مالك قاد شيء سوي خفية سقر صور وما شاء الله قاطع مركا مال هل كيروح كف عنيد هذا أخذ شيء خفية وهي وحى لحدا مال معها مختص با يسقون الشراء وحان مال هين ولا يبين كري لكن وقف لك جوني نغن كرو سأيجي توبرائي دقدي سي وحيابا نوعاس مختص با كوالي هذا وقفوا لك قار نغن كرا دي dadka kale uu ka xigi karaa markaasina in laga qaato hadee ma banaana marka khifiyatan markuu rido waxa meesha ka baxaya hadduu xoolihii ama wixii mukhtaska ahay cid ay la gaar ahayd si muuqata u qaato sariqa lama yidhahdo luqahaan iyo sharci ahaan toona hadduu awood isticmaalo nahbi baa la yidhahdaa xoog iyo dhac haddii uu la intuu dhufto uu la cararana ikhtilaas baa la yidhahdaa magacyada gooniye bay leedahay axkaamta sariqadana ma leh oo hadduu moobil qaali oo $1 kaa dhufto uu la cararo gacan lagu jari maayo waayo si hoose dee umu qaadan laakiin maaha macnaheedu waa la iska daynaya waa loo mahadnaqayaa maaha tacsiir buu leeyahay xoolihiina dee waa lagu leeyahay hadduu kuu xoog sheegto xoog uu kaaga qaadana iyaduna waa la mid oo maxay u kala duwan yihiin oo markuu si hoose u qaatayna gacanta loo jaraya markuu xoogay ama uu la cararayna loo jaray waxay leeyihiin waxaan kan waxadaya si hoose u qaadan la iskama ilaalin karo dhib badan yihiin tuugtu jeebkaagaasu gacanta u ridanaya adoon ogeyn bakhaarkii buu u dhacaya ama uu jabsanaya laakiin kan kale waa la iska ilaalin karaa booliska odhan karta waari qabta ninka waxba igala carareen ama dadkaad odhan kartaa war ninkani wuu xoogayaa iga qabto iga celiya laakiin kan yaad uga caban doontaa ee kaaga gargaaraya kan sida qarsoon wuxuu qaadanaya uu dhib badaya isaga ka dhib badan kuwaas midda kale dee in xoolaha si qarsoon loo qaataa ka badan in si muuqata dadka looga qaado sharcanna akhduhu maalka qaadashadiisa weeye damiirku maalku noqonaya khifyatan si qarsoon loo qaato si muuqata haddii loo qaato inaga sheegnay inaan sariqo la odhanayn dulman ay bidulmin gardarrana lagu qaato haddaanu dulmi ku qaadana islaam waxan waa xoolahaagii sariqo la odhan maayo axkaamta sariqadana yeelan maayo oo ku khaldamay min xirzi milihi laga qaato isaga oo kale meesha lagu ilaaliyo markaad shuruud bay leedahay bishuruuطin ta'tii inuu intaa idhahdaa bay ahayd halkana wuxuu kaga waramayaa shuruudda ay leedahay gacan goyntu ama goynta qofka waxaday lagu sameynaya shuruudda qaar waxa laga eegayaa ka waxaday qaarna waxa laga eegayaa waxa la xaday laakiin waxay shuruud u tahay qatciga goynta shuruud laakiin yuctabaru bacduha fi saariq bacduha fi lmasruuq وتقطع ولا تشري بر يد السارق كوحدي قعنتيسا بثلاثه شرائط صدح شردي با لو جريا بمعنى او لغا ايغيو سارقه وفي بعض النسخ بست شرائط لح شردي marka culimada qaar waxay yiraahdeen ma waaba 10 ba شروط القطع والطبانو ليش waxa laga eegaya saariqa afarna waxa laga eegaya suruqa laga eegaya saddex sheego horta aynu eegno ay kuna waa inuu hada saariqu ka waxade baaliqan mid qaan gaaro caaqilan miyir qaba oo mukhtaarana mid arinta doortay oo lagu khasbin oo musliman kana aw dhimiyan sawan waxa isku mid ah kana haya musliman haya aw dhimiyan haya dimiyoode jizyada laga qaado axkaamta islaamkana lagu fuliyo marka mid shardi inoo sheegay albuluq wal aql
والاختيار صدق حين نقول شيء واحد قدرتها التزام الأحكام ذمي baa soo galay isagoo xagga dambe ku ishaaray yiri musliman kana u dhimiyan waa inuu mid ahkaamta iltizaamo aqbalay islaamka in lagu xukumo marka gaaladii kala dhow meesha way ka baxayaan dhimigun baa gaaladii nooga soo haraya العلم بالتحريم waxaan inuu xaaraan waa inuu garanayo alla yakuna maaduna law min al-malik qofkii xoolaha lahaa waa inaanu idmin فلا قطع wax jarisi على سبيل midaan qaan gaarin dushiisa ma ahaan waa mukallaf ma ومجنون mid waalina dushiisa ma ahaan ومكرين mid la khasbina dushiisa ma ahaan oo inta wada qalinka waa laga kor yeelay waaye ka wax ka khasbay ka waran ku khasbay inuu xado gacanta laga jari maayo waa isagoo xamu xadin de saariq ma haysan ilaahayna wuxuu wa saariq wa saariqatu laakiin waxa laga soo reebaa midaan garaadsan hadduu amro inuu waxado ilmo yaroon garaadsan buu yidhi orodoo moobilka kaa dhinac yaalla iska eego soo qaad waa ilmo yaroon garaadsan waxa qofkaaga yaalla soo qaad buu ku isagaa markaa la jaraya kii yaraa lama jaraya ama mid acjamiya oo moodaya qofka wax amraba inay waajibtay inuu adeeco ala jaaligaa cajamta ku badan oo labadaasi kala aala bay noqonayaan mumayyiskii cajamiga saasi qalab la isticmaalo kale noqonayaan inuu mukriha ka wax khasbay baa waxaday markaa waxa la mid ah hadduu isticmaalo tusaalaan ka waran xayawaan tababaran gacanta ma laga jaraya maya daayeeroo kale ayuu yihi waxaa soo xad ama mid mumayis soo garaadso wax kala garanayu yihi kuwaasi aala maaha iyagaa waxaday isagoo xama xadeen ikhtiyaar bay fi ljumla leeyihin dee sooma daayeerku hadduu doonaa markaaga uu khilaafaya dee adoo u diray buu iska daynaya waaye ka warama haddii uu daayeer qof ku diro dhagaxaa qaado ka halkaa hurdo madaxa kaga dhufo wala qisaasaya waa la qisaasaya maxay ku kala duwan yihiin qisaasta iyo gacan goyntu waxay u kala duwan yihiin xuduuddu mubaasharun bay ku sugnaataa tasabub kuma sugnaato laakiin qisaastu saynu darsigii hore kusoo aragnay tathbutu bilmubaasharati wa bitasabubi labadu way ku sugnaataa furuuqda fiqiga bay ka mid tahay ويقطع ولا شريا مسلم مد مسلمة وذمين يمد ذمية بمال مسلم بسرقة مال مسلم مسلم مالك حديثتي بالغ شريا وذمين يمد ذمية مالك حديثتي كوافر صورة ومسلم كهدو مسلم حدا قاعد ولا شريا هدو ذمي حدا ولا شريا ذمي وهدو مسلم حدا ولا شريا هدو ذمي كلا حدا ولا شريا وأما المعاهد مياه كي نبت قليا ونقول له شيء حبة توتشين مؤمن كنا والله ميدا كلمة جنجلي فلا قطع واحد شريس عليه دوشي سماها في الأظهر القول الأظهر وإلا أنه غير ملتزم لأحكامنا أحكامته لقوا مسعودية لما داس أحكامته يجوا ما يقبلين إن كان مجال بون غضوا ديل كون ياللي ديلين ما جنجلي بوني كان حبة توتشين بكولاشي الإسلام كانت كحكمتك ولا مويشي مركا حرب جاي حقها كلام دين وما تقدم وحى صهر مري الشرط أي شروط وهي في السارقة سارقة شروطها كوحدي وذكر وحو الشيقاء المصنف شرط القطع والشاقي قعن قوينت أما قوينت شرد قيدو الشاقي بالنظر مرك الله يقال المسروق يعني الشروط ده لغو شرعي قفك لكن لقى ايقيو وحل حضي في قوله بكل شيء ويري وان يسرق وين وحضر نصاب السرقة وين وحضر wax sariqa nisaabkeed gaarsiisan oo qiimatuhu nisaabkaasoo qiimihiisu yahay rubcu diinaar inuu yahay diinaar rubci iyo wixii ka sii badan rasuulka yidhi laa tuqtacu yadu saariqin ilaa fii rubci diinaarin fasaacidan xadiidka caaisha qof quri ha lahaado ama dad badan ha wada lahaadaan marka goormaa qiimaha la eegayaa ilaa halka weynoo itlaaqo qiimatu rubcu diinaarin unbuu yidhi marka aanu hayn dahab la lacageeyey dahab qaabkii lacagta loo sameeyey hadduu yahay qiime lama eegayo miisaankaa la eegaya rubcu diinaari qiimihiisu wuxuu doonaya baa noqde laakiin hadduu yahay dahab aan la lacagayn oo qaabkii lacagta aan loo samayn
marka waxa loo eegayaa bilwasni walqiimati macan miisaan ahaan waa inuu yahay rubcu diinaar qiimo ahaanna waa inuu yahay rubcu diinaar waa inuu yahay maxaa hadhay wixii aan dahab ahayn isaga maxaa la eegaya qiimaha qurun baa loo eegaya fida ha noqdo wax kale ha noqdo rubcu diinaar waa inuu la qiimo yahay miisaankiisu wuxuu doonaya baa noqdeen wuxuu ihi khaalisan rubcu diinaarka dahabkaayo dahab saafi ah khaalisa oo madruuban mid la lacageeye ah marka haddii halkan qiimo iyo qaabkii lacagta loo sameeyey buu sheego halkaa nadar ba hadalkiisa ku sugan waidaa kaana madruuban laa yundaru ila alqiimati wainamaa yundaru ila alwasn hadduu dahab iyo madruub aanu ahayn mid qaabkii lacagta loo sameeyey haddaanu ahayn oo dahab uu yahayna qiimaha iyo wasniga labadaba waa la eegaya haddaanu dahab ba ahayna qiimaha qura ayuun baa la eegaya waayo marka xataa hadday wax kale ku jiraan waa in inta khaaliska ee baraxa tirani ee dahabka ahi ay rubcu diinaar qiimo ahaan gaadhayso waktiga markaa intaa qiimihiisu inuu noqdo shardi ay tana markuu meesha ka saaray intaa dabadeed doono qiimihiisu ha nuqsaamo waxba inagama gelin wuxuu yihi aw yasriqa ama waa inuu xado qadarkaasoo maqshuushana mid dahab iyo wax kaloo isku jira ah oo yabluqu uu gaadhayo khaalisu intiisa saafiga ahi rubca diinaarin uu gaadhayo rubca diinaarkaasi oo madruuban ah mid la lacageeyey aw qiimata uu gaadhayo min xirzi milihi waa inuu ka xado shaygaasoo kale meesha lagu ilaaliyo oo ashyaadu meelaha lagu ilaaliyo way kala duwan say u kala qaalisan yihiin iyo sida dadku ay u kala jecel yihiin marka meesha inuu shaygaasi shay ilaashanahayo in kale waxaa loola noqonaya curfiga sharcigu xad uma yeelin ghazaalika waxa maa laa yucaddu saaxibu mudayican lahu xoolo kastoo meesha la dhigay marka la eego qofkii lahaa ama hayey inuu dayacay aan lagu tirinayn oo lagu sheegahayn xoolahaasaa ilaashan وهذا يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات مالك لفتيس iyo xaaladda lagu jiro iyo waqtiga la joogo ayaa taa kala duwaysa oo maxaa loo shardiyey inay xoolahaasi meesha maalkaasoo kale curfiyaan lagu ilaaliyo ay ku ilaashanaayeen haddaana ilaashanayn ama meeshii maalkaasoo kale dadku ku ilaashanayeen qofku aanu dhigin dee isaga dayacay oo in la qaatana sababay ولهذا رسولك لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما أواه المراح حولها كيمها الضاقية قفك وح كم إذا كحيستا أما ناف كم إذا قاطع قاعد لقو شري مايو لكن حردي لقو حريني يدو كلبحو ولا قاعد شريا وحلم إذا حردا هدو قف إيش كوهيو قف با إلالينا يوم مربط ديمونا يحوله لكن نبا حول الله ديري أري با الله ديريو wuu iska seexdayba daymoodkii lixaadkii meesha uu ka baxay etana nin baa orgi yar ama wan qaatay gacanta lagu jari maayo tacziir iyo waxaa mooyaane fain kaana hadduu yahay buuhi waa tane almasruuqu waxa la xaday hadduu yahay bisaxaraa mid ku sugan meel aan la deganayn saxara kan inagu naqaanuun maayo meel kastoo aan magaalo ahayn ama deegaan aan ahayn baa looga jeedaa hadday doonayso kayn meedhan ha ahaatee aw masjidin ama mid masaajid yaalla hadduu yahay aw shaaricin ama wuxuu yaallaa shaarica wadada ayuu yaallaa ishturita waxaa loo shardiyey fii xirzihi xirzigiisa waxaa loo shardiyay ilaashanaantiisa dawaamu lixaadi daymood joogtanimadii shayga hadduu qofku dee shaaricaas wadadaasuu tusaaleaan alaab ku iibinaya alaabtii dee gacanta kuma hayo way ag taallaa tusaaleaan laakiin marba wuu eegaya wuu daymoonaya ama masaajid ku dhigtayoo marba wuu eegaya xaggaa dambe hadduu kaga yimid dee daymood suurtagal maayo ama xoolihiisii dee kaymahaasay daaqayaanoo marba wuu eegaya xoolahaas way ilaashayin wain kaana hadduu yahay shaygu haddaba masruuqu kan la xaday bixisnin
mid ku sugan meel ilaashan wadaalika beyti waa sida guri oo kale kafa waxaa ku filan lixaadun daymaad muctaadun loo bartay bimithli isagoo kale hadda la soco ka hore maxaa la yidhi kii banaanka yaalay dawaamu lixaad baa shardiya si joogtaa inuu daymoonayo kan guriga ku jirana lixaadun daymood iyo eegis muctaadun laga caado dhigtay fii mithli isagoo kale yacnaa daymoodka iyo eegista curfi ahaan shaygaasoo kale dusha laga eege marba la eego ayaa ku filan mar walba inuu eegayo shardi maaha mar hadduu guri ku jiro waayo gurigu hadduu haddaba meesha la degan yahay ka go-aye ka waran marka mulaaxid lixaad iyo daymoodka gurigan ku qufulay un dee kuma fille waa in dusha laga eegayo weliba ka eegaya waxaa shardi waa inuu yahay mid xoog badan oo dee qaban kara tuuga ama iska difaaci kara oo soo jeeda weliba albaabku hadduu doona iska furraadee ama waa inuu dhex hurdo oo laakiin albaabka u xidho haddii albaabkaanu xidhina uu celiyo un laakiin uu hoos seexdo xagga dabadda ha ka seexda ama xagga gudaha ka seexdee iyaduna waa la mido waa ku filantay ka waran guriga dhismayaasha kale ka go-an da la soco haddii aanay cidiba joogin amaba se qofka joogaa waa qof daciifa oo taag daran oo xoolaha aan difaaci karin albaabku hauba xidhnaadabee qofka xoolaha yaalla qaata mar hadduu gurigu ka go-anya guryaha kale oo magaalada uu ka baxsan yahi gacan lagu jari maayo xoolo ilaashan maaha hadduu gurigu magaaladii ku dhex yaalla ka hor dhismayaashii kale ula xidhiidhsan yihi ka u kooneeyaba ha noqdee ka u baalleeyaba ha noqdee albaabku inuu xidhaya baa ku filan maca mulaaxidin mid ilaalinaya oo daymoonayana uu jiro haba noqde mid hurda ama daciif baa doonaya ha noqdee ama waa in albaabku uu xidhan yahay yaanay cidiba joogin laakiin albaabku inuu xidhan yahay goormay ku filantay waxay ku filan tahay haddii zamanku yahay zaman amni iyo nabadgelya ay jirto inuu maalintii albaabku xidhan yahay wuxuu yidhi wathawbun maro iyo mataacun alaab wadacahu uu dhigay shaksun qof biqurbihi meel u dhow uu dhigay bisaxaraa meel cidla isagoo jooga maalan waan tusaalaynayaa in laaxado hadduu daymoonayo binadarihi uu ku daymoonayo eegmadiisa lahu ileyh uu eegayo waktan uu eegayo fawaktan fii waktin uu eegayo fawaktan wa fii waktin wakti kalena uu eegayo sida caadada ah walam yakun aanu ahayn hunaaka halkaana waxaa lam yakun aanu ahayn hunaaka halkaana isdixaamu taariqiina kuwa wadada maraya isciidhigood fahuwa muxrazun wey maxnaa alaabtii agtiisu dhigtay alaabtii waanu wakti maruu ka soo wareegabana wuu eegaya cid dad fara badan oo dee wixii ka qarin karaana meesha mari maayaan alaabtaas waa u ilaashantao qofka qaata gacanta lagu jaraya wa ilaa haddii kale miyaa oo wakti bacda waktin ma eegin cala alcaada say ahayd ama dee dad fara badan oo ka qarin karaa meeshii maraya falaa falaysa bimuxrazin mid la ilaaliyey maaha wa sharطulmulaaxidi kaa daymoonaya shardigiisu waxa wey waa shardi kale qudratu inuu awoodo calaa manci saariqi tuugga inuu ka celin karo oo uu kaga celin karo xooggiisa ama dee dad ay u dhow yihiin oo cidlo aanay meeshu ahayne uu gurma dee dadka weydiisan karo haddii kale dee eegmadiisu waxba tari mayso wujuudu kacdami wey wa min shuruudi lmasruuqi shayga la xaday cidda xaday gacanta lagu sharay shuruuddiisa waxaa ka mid a maa dakara wuxuu sheegay almusanifu abushujaaci fii qowlihi ku sheegay uu yihi laa milka wax lahaanshahay lahu isaga fiihi aan ugu sugnayn lahu oo saariqa ah fiihi shayga aan ugu sugnayn masruuqa ah markaa shayga hadduu wax ku leeyahay hadduu isaguba leeyahay gacan lagu jari maayo shay isaguu lahayo cid u rahmanaa ama uu ka kireeyey ama cidi ka ammaanaysatay ama uu ammaano ugu dhiibtay buu xaday diba wixiisaa gacan lagu jaraya waa maya qof baa alaab ka iibsadayoo
alaabtii intaan lagu soo wareejin lacagtii uu bixiyey ama lacagtu muajal bay ahayd oo way muddaysnayd markaasuu xaday alaabtii gacan lagu jari maayo waa meesha inuu galo waa loo idmay bal xataa hadduu mid kale ku daro xataa lagu jari maayo nin baa bakhaarkiisa alaabi kuu taalla adigu aad leeday albaabkii baad jebisay oo alaabtaadii baad ayaad ka soo qaaday in kalena waad ku dartay intaa kale xataa hadday nisaabtay gacanta lagugu jari maayo waayo meesha inaad gasho waa lagu ogolaya alaab baa kaa taalle waaye waxaa la mid ah hadday cid wada leeyihiin shayga in yarba isagoo ha ku lahaaday hadduu wax ka xado gacanta laga jari maayo xaqiisu shaayic buu ku yadee shubhu dhalinaya walaa shubhata wax shubhaayna ay lisaariqi ka wax xaday fii maali masruuqi minhu maalka la xaday aanay ugu sugnayn ka wax laga xaday maalkiisa aanay ugu sugnayn hadday shubha ugu sugantahayna gacanta lagu jari maayo shubhadu waxa weeyaan tusaale ahaan dee waa waxa maalka la wada leeyahay oo kale maalku wax ku leeyahay maalka tusaale waalidku haddii dee waladkiisa wuxuu ka xado ama addoonkii haddii maalka sayidkiisa wuxuu ka xado wakadalika waxaa masaajidka loo dhigay in lagu wada intifaaca hadduu xado roogga masaajidku gebigiisaba rarta $20,000 gacan lagu jari maayo tacziiriya mooyaane masaaxiftu waa la mid laakiin waxaa masaajidka lagu qurxiyey hadduu qaato shuruuddiina la helo gacanta waa lagu jaraya kan shubhu ku leeyahay dee waa shay lagu wada intifaaco meesha loo dhigay laakiin kaa lagu qurxiyey maya ka duwaya isagu falaa qaطca wax jarisi bisariqati maali aslin asal maalkii xadistii ma ahaanin wa farcin ay walaa qaطca wax gacan jarisi bisariqati maali farcin mid faraca maalkii xadistii kuma sugnaan lisaariqi ka saariqa asalo ama faracu ah haddii awlaadu waalidkood xadaan ama waalidku awlaaddiisi xado labadu waa isku mid oo waxa weeyaan gacan lagu jari maayo dee shubha jirta walaa bisariqati raqiiqin walaa qaطca wax jarisi kaainatun ama haabit ma sugnaatay maaha bisariqati raqiiqin addoon xadiistii sababtii maala sayidi waa xado sayidkiisa maalkiisi dee shubha jirta wuxuu shubhaysanayaa dee in masruufkiisa uu ku waajibay isaga haddana wuxuu masruufkiibu ugu yareeyo xaqaygii baan ka goosanay watuqطacu haddaba sidee loo jaraya qofkii wax xaday watuqطacu waa la jarayaa min asaariqi ka waxaday waxaa laga jarayaa yaduu gacantiisa alyumna ee midig ilah wuxu uhi wasaariqu wasaariqatu faqطacuu aydiyahumaa qiraa'a shaada xadiidka aaxaadka alla xukuma waxay odhanaysaa faqطacuu aymaanahuma saa awgeed bay leeyihin midigta lagu bilaabaya halkee laga jaraya haddaba gacantiisa midig min mafsili lkuuci kuuca kala goyskiisaa laga jarayaa halkaas kuucu waa kii aynu sheegnay waa laftaa dee suula ka dambeysa marka kuucu waa ka laftaa kala goyska ay ku taalo ayaa laga jaraya tan xagga fariiradana dee iyadana buuc baa la hahdaa waxaa la hahda karsuuc ayib kursuuc bidami lkaaf goormaa la jaraya ma iyadoo sideeda isugu talaa la jaraya maya marka hore waa la kala siibaya xadhig baa halkaa lagaga xidhayaa markaasaa la kala siibaya sidii qof jabay oo kale horta laga dhigaya waxaa la jaraya bacda khalcihaa marka la siibo dabadeed minhu isaga laga siibo ee bixablin xadhig lagaga siibo xadhiggaasoo yujaru la jiidayo bicunfin si xooga oo adag loo jiidayo waa si dee goyntu ay u fududaato oo qofkii dee xanuun aada u badan aanu u dareemin bir markaa af badanna waa lagu jaraya wuxuu yidhi wainamaa tuqطacu waxaa la jaraya alyumnaa gacanta midig fi sariqati اlula xadista koobaad hadduu marar badan waxado oo tusaalahaan aan la jarin marun baa la jaraya un asariqa alati qabla alqaطci walow takararat baa looga jeeda hadda halkaas iska ilaali sariqat lula loogama jeedo kow buu xaday labuu xaday saddex buu xaday
tii koobaad baa midigta loo jaraya tii labaadna lugta bidix baa loo jaraya saa looma jeedo fi sariqati lula waxaa looga jeedaa asariqa alatii qabla alqaطc gacan goynta tuugada ka horeysa ha soo noqnoqoto 10 jeer ha noqoto ama 20 jeer ama mar qura ha noqotay القطع الذي قبل بعد السرقة أما السرقة التي قبل القطع ولو تكررت فإن سرقة هدو حدث ثانيا مر لبعض بعد قطع اليمنى مركي قعنت مديق لقيت شريد دبيد قطعت وحا لتشرى رجل لوكتي سال يسرى بدح لوكتا بدح ولا لقيت شرى مركي مديقتو بوكستو مديقتو وليان بوكسن لما تشرى بدح لبدا نبر هدي سرعة عن لو دي من كراي بحديدة بربا لقو تشرى ماضية يعني أفوين دفعة واحدة هل مر أيال تشرية بعد خلعها مركا لكالسيبات دبدين لقطة ومن مفصل القدم قمدة كالقويس كده لقى كالسيبه فإن سرق عدو حدا ثالث المرصد حاد مركي لقطة بديح لقى تشري دبدين وضيعت والا تشري يدو قعنتي سال يسرى بديح بعد خلعها مركا لكالسيبه لكالدفت دبدين فإن سرق عدو حدا الرابع المرء أفراد وطيعت وحا لتشري رجلوه لقتيس اليمنى لقتيس مدق بالتشريه markay bidix u bogsato way baada khalciga marka lugta la kala siibad dabadeed marka halka gacanta midig iyo lugta bidix iyo khilaaf kama taagna laakiin labada dabadood haduu xado ma laga jaraya gacanta bidix rafraad haduu xadana lugta midig ma laga jaraya khilaaf baa ku jira Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wuxuu yiri horanu ilaahay baan ka xishoonayaa qof afartaba u gamoodi maay buuri تعزيري وحبا لوغا wareegaya Abu Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wali ka sax wax naso hode saa sheegayana ma jiro ijmaacna ma jiro xadiid ku soo arortayna waa daciif way ويغمس ولا قوسنيا محل القطع ماشي جريستو ay ku dhacday بزيت في زيت baa la quusinaya saliid dhexdeed aw duhnin ama subag muqlan ah mid la karkariyay oo maxaa loo yeelaya waxa loo yeelaya waa si aan u dhig bixino xididada afkooda u xidhmo taas waa du reer magaali adu reer miyahay madana loo qaadanaya isaga afka horun baa laga gubaya فإن سرق هدو حدا بعد ذلك مركي أفر تبالا شريد دبدين أي بعد الرابعة مركي أفراد دبدين هدو حدا عزيرة ولا جناحئون سي مشهور كا وقيل وحليني يقتل والدي لي صبرا قتلا دل أو صبرا برتوشنا سقو حران بمعنى حران قيل بس أورانيا مركي تعزير علمي سبيلين إن كنت تشرح حدا حديث إمام أحمد وريوم مرفوع وجراه وحديث الأمر أمر كي حديث كيس بقتل ليس أمر يدل كيس المرة الخامسة مركز شنادو حدا للدلو منسوخ وي علماء قالوا ضعيف بين هذين علماء قالوا منسوخ بين هذين علماء قالوا كنا حيكون دارين الحديث التي ليس عليها العمل واللي سكجمت تجينوا ندي أسباب عمل فلك كده لو جت تجي باجرت كتاب مركا لقى اللي في مسألة أنا واجرتها الحديث واجراه الحديث التي ليس عليها العمل فصل في أحكام قاطع الطريق فصل كانوا كساب سيء شوف تضع أحكام تودو كساب سيء قاطع الطريق محاله لأنه يمنع المرور فيها وضدي إلا مرابودتك ودي ديادتك وددوا يكقوا أيام مركا شفته وفريسته مركا قاطع الطريق مانع المرور فيها باللغة كذا qofka dadka ka hor istaaga wadada maristeeda wa shuftadii ilaahay aayad buu ku sheegay ku taala suuratul maa'ida inma jazaa'u alladheena yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard وسميه ولا magacaabay buuri ka wadada jaray bidalika magacaasa lagu magacaabay qaati'u tariiq lafdigaasa lagu magacaabay imtinaa'i naasi dadka ka istaagooda awgeed ba magaca loogu magacaabay min suluuki tariiqa wadada maristeeda ay ka istaageen sababtii isaga sababtii liman innaas baaba ka ficnay isaga dadka wadada u diidaya khawfan baqaawga uga istaagayaan min isaga ay ka baqayaan sabab kale uga istaagaan qaati'u tariiq isagu noqon maayeen
قاطع طريق الدبواي وهو قاطع طريق مسلم وي تاسقيد ما وإنه مسلم شرط ما ملتزم بالأحكام إنه يبقى شرطية مسلم أما ذمي وين يهي مسلم كاسي أو مكلفنا مد قانقارو مير قبا حقيقة مكلفوا أما حكم المكلف هو سكران كي متعدقها ومختارة هالكا استنا شرطيها سنة وكتيرا وارنتا دورشيسا كسميون لغو خصبين ولو يساقا يسقناتي شوكة أودي ودي هبو ستاه أودانا ويعني عدة والله يا ودada u galay ama uu dhacayo ama uu baqagelinayo de waa awood uu yaani wax ku yeeli kara ayaa loo jeedaa فلا يشترط لوما شرطيه فيه قاطع طريق ذكورة لبنimo looma shardiyo haday gabadhi marka intay hub qaato dadka wadada u gasho waa qaati'atu طريق riyaduna wala cadad tirana looma shardiyo xurriyana looma shardiyo haduu doona noqdo فخرج وحا كبحي بقاطع طريق لفظ قاطع طريق مركا ليري المختلس با كبحي كوحا ويان مختلس كا واكيد ينصور شاقني الذي كاسو يتعرض وبن بحي لآخر القافلة ضدك سفر آخر كودية أنت ودن بيتسا معنا هو حوجية أنت ودن بيتسو حوجية لكن قافلة دورنا وباب عدق بايو وكذلك منتهي بكنا والله مد كي وحلا عرري قاطع طريق كو الله ما يرى سان سارق بلورا ويعتمد يتعرض مختلس كو منتهي بكي اختلاس كي انت ينهبكو مينان أوران مختلس كو حويان واكو حوقي من أوران منتهي بكنا يعني مختلس كو كان الذي يعتمد على القوة على الهرب ها صح سنوريك صحوي وكم انت وحدفت عن الذي كاسو يتعرض وبن بحي لآخر القافلة ويعتمد عسكري الهرب قوة هي أود يحوق وشجري ما ولا عرية وقطاع طريق هالضباء كوا شفتضا هي مركا لا يقع حكم كالوقف لينيو على 4 أقسام أفرق قيبوت بين غنين ألا ولو كواد مذكور ومن لغو شيء في قول كوري مصنف كابو شجاع هي إن قتلوا هدي دلان أي عمدا قتلا دل وعمدا ماذا يكسينا وعدوانا ظلمئة من أي دلان يكافئون يقول لقمان كيلو قساسية ولم يأخذوا آني قادر المال حولاني قادر قتلوا للدلي ويدوا حيليه المركة على التنويع على الترتيب على التنويع عفوا ترتيبها على التنويع أن يقتلوا ونوع قونية وكو واحد دلوية كواس ما الله أن قادر مركا عمدا أدي وحد دلان وهدي خطأ وحد دلان ماشي وعمدا لما الدليه عدوانا وين وحد دلانو قف مركو ربا دلكيسا شريعته بنيسيها دي دلان ظلما عدوانا ظلما بالو قتش ظلم دي مركا كوم يدلين تارك الصلاة بيت دلان أما زاني محصنة أما مرتد بيت دلين مركو إمامكو عمرين اللي الدلان دي بدأت أما مدى قصاص كلها هاي بيت دلين يدلكو ياسي ظلمي معه لدلي مايو من يكافئون وحل وقتش ده مدى أي صوت لقمان ودي تصالان هدي أدوميين وين أدون دلين هدي حريين وين ضد حر الدلين حولانا ما يقادر قتلوا ولا الدلي الدورة آيات وصي شاكتي أن يقتلوا مركا ما قصاص أهم بالو الدلية بصحة أهان لبدو ويسكو جيران لكن كيبا مغلبة حق أحكامته مركا كحوق رونانية قصاص أهانته ولهذا ضل صعو شيخو وكافة هذا محلو شردي دي حتى يا رنتو دي حتى هي مكافأة لما شردين وقت وفكان الدلين ويقف يسوق لقمان marka waxa la qalibo la xoojiyo dhinacii waxa weeyaan qisaasnimada xaq ilaahay iyo xaq bani aadam meesha ku kulmayo xaqii bani aadamka marka la xoojiyay xaq ciriiri gelin iyo oofsashu isagu ku dhisan yahay
واي حتما لكن قصاصا قاطع الطريق لقصاص يبحي كقد وانت قصاصا كله قصاصا كله وحا اختيار له ددك ديق له waxay u door leeyiraan loo qisaasiyeen iraadaan waanu cafinaa ama mag baanu qaadanayna qatlan baa la dilayo hatman ay waajiban oo khiyaar ma jira halkan hatta qofka la dilay dadkiisa hadii waanu cafinay wala dilaya lil haqq al aam baa loo dilay wa in qatalu haday dilaan cid oo khataan kama ay u dilaan aw shiba amdin aw man ama mid bay dilaan lam yukaafi wa aanay u dhigmin أما ولد كيس يبود دليبا سواء قاطع طريقة لم يقتلوا لما الدليو لما الصورة بقى والثاني نوع على بعض مذكورها من لقوا شيء في قوله يريد فإن قتلوا هدي الدلان وأخذوا أيقاتان المال أيقاتان مال كواكيما وحلا روح مال يرابا مال كان محله إيه شروط السرقة ده إنه مال كاسي أيقاتين وها النصاب ربع الدينار أما وحلا قيمة يحكى بدل saasoo kale xirz mithli inay ka qaateen inaanay milki ku lahayn inaanay shubaa ku lahayn waxaasoo dhan baa loo eegaya ay nisaabo sariqati bay qaateen gacan goynta nisaabkeedii yafa akthara ka badan qutilu waa la dili ilaa waxbay dileenay qatliga wixii loo eegayay oo soo aragtay oo sulibu waana la daldali doonaa wana hatman ala khashabatin baa laga soo daldali loox iyo naxwiha wixii shabaahada sida biro kale dhagax iyo gidaar iyo laakiin asayeeshe marka iyagoo nool la daldali ma iyagoo meeyda la daldalaya laakiin shay asayeeshe bacda ghaslihim marka la meeyro kadib wa takfiinihim ila kan fa wassalatu alayk in lagu tukado waa haday muslimiin yihiin marka inta loo sameeyo la soo daldalaya imisa maalmood bay daldalnaanayaan saddex maalmood haddaan laga baqan inay qarxaan iskama qurmaan mar haddaan qarax looga baqanayo saddexaas daldalnaanaya si loo ogaado oo loogu quus qaato والثالث نوع صدحات مذكور ومن لغو شيغي في قوله ابو شجاع وإن أخذوا هدي قاتان المالنا حوله ولم يقتلوا عدنا عن الدليل أي نصاب السرقة تبي قاتين انت قعنت قف لغو شريه فاكثر كبدا من حرز مثل بيك قاتين ولا شبة وحش بين اللهم يقوا ومسكنا فيه مال كاس تقطع والله تشري أيديهم قعمه هذا يوارجونهم لغو هذا من خلاف سويدار بالله تشري دونا تقطع والله تشري منهم يقع أولا مرقى كوباد اليد اليمنى قعنت مدك والرجل اليسرى يلقط بدح فإن عادوا هذي مرلبات كنا غضانا فيسراهم بالله تشري قعنتو ذا بدح يو يمناهم فيسراهم قعنتو ذا بدح يو يمناهم لقتو ذا بدك أي يقطعان لا تشريه فإن كانت اليمنى هذي تاي تمدك أو الرجل أما اللقطة اليسرى بدح مفقودة ميدان تشرين ما بالله هبا ننكو وحو لها قعان مدق يلق بدح لماذا كلام ربا كم قراين كتوفيه وحل وكافتومي دونا بالموجودة انت عديت لهايو فلا صحي انت سنبا لغا تشري دونا والرابع نوع أفرادنا مركا دي السرقة دي وحولا قرى مركي قاتان أرين كودو حدكي السرقة دو قرى معها دي وحراعي بقى قلين إيا أرقاح قلين إيا دي وحبي السبيري شفت النمو لهذا بقى حدكي السرقة زيادة الله قدري والرابع نوع أفراد مذكور ومن لقول شيء في قوله فإن خافوا هدي بقى قليان شفتضوا المارين كوي مري في السبيل أي الطريق والضداس ولم يأخذوا آني قادر منهم يقاني كقادر مالا حوله ولم يقتلوا آني الدلين نفس النفن آني الدلين حبسوا مال ما يقادن محال مذا مال ويقاتين نصاب السرقة موهين أما ملك بيكولين أما شو بيكولين والله مذا يدنا نفسا ولم يقتلوا نفسا نفوي الدلين لكن واحد الدلين نفان الدلم كدلين حق يكدلين والله مذا يدنا حبسوا على حري في غير موضعهم ميشو ذا ميلان هين بالغو حري دونا دي مستافورين إيا حرق بالي سوق الضري وعزروا أنا للجناحي مركا حبسقوا حرست محي كمتي تعزيرتها كمتي ومن باب عطف العامي وتعزيرتها على الخاصة حبسقة واي
markaa xabsiga muxuu gooni ugu sheegay isagoo tacsiirta uu sheegay ka mid ah lannu aayadda isaga lagu sheegay leeyihin aw yunfaw min alardi waa nafyi min alardigaas waa meesha meelaan ahayn in lagu xidho xabasahum waxaa xidhi doonaa alimaamu xaakimkaa xidhi doona wacazarahum waanu ganaaxi doonaa wuxuu u arku ku ganaaxi waayo markaa maxay sameeyeen ay dadka baqageliyeen macsiyo aan xad ciqaab go-aan aan lahayn xataa imaamku iska dayn karaa dee tacsiirta u cafin karaa hadduu maslaxad u arko waman taaba ka toobad keena oo minhum iyaga ka mida ay qutaaci ariiqi ka mida qabla alqudrati ay qabla alqabdi gacan ku dhigis horteed min alimaami gacan ku dhigistaasi xaalo ay ka ahatay imaamka xaggiisa calayhi isaga uu ku gacan dhigo saqata waa dhacaya canhu isaga alxuduud ee alcuquubaat ciqaabyadii baa dhacaya almukhtasatu ee ku gaarkahayd biqaaici ariiq qaaicu ariiqa wixii gaarka ku ahaa o dhan baa dhacaya ile dilka qisaasa loo dila iyo kuwaasi kumay gaar ahayn maxay qaaicu ariiqa oo hadduu wax dilay isagoon qaaicu ariiq ba ahayn de waa loo qisaasaya mar haddii shuruudii qisaasta la helo waa ilahi wuxu uhi ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim kuwa la soo reebaya kuwa toobad keena intaan la qaban ciqaabkii shuftanimadu wuu ka dhacaya wixii kale ay fal sameeyeen ciqaabkii unbaa u hadhaya wahiya cuquubaadka qaaicu ariiqa ku gaarkahay wa taxatumu qatlihi inuu dilkiisu waajibo oo qof dilay unbuu noqonayaa hadduu toobad keeno intaan la qaban markaa dee dadkiibaa ikhtiyaar yeelanaya qofka uu ka dilay wa salbuhu iyo deldelistiisuna meesha way ka baxaysaa iyaduna wa qaطcu yadihi iyo jarista la jaro gacantiisa iyo warijlihi oo gacantoo qura lama jarayo labadu way iswada raacayaan mar haddii bar ka mid uu dhacay oo lugoyntii gacan goyntiina way dhacaysaa iyaduna way raacaysaa kale dee sariqa maa waxoodu walaa yasqutu dhici maayo buu ihi baaqi lxuduud xuduudda inteeda kale aan qaaicu ariiqa intaan ku gaarkahayn iyadu dhici mayso alatii xuduuddaasoo lilaahi tacaala ilahay u sugnaato taasi qeyd maaha ilahay u sugnaato ama bani aadam ha u sugnaato ka zinan oo kale hadduu zinaysto dee zinadii toobadkeenka uu shuftanimadii ka toobad keenay xadkeeda kaga dhici maayo wasariqatan iyo tuugaa hadduu xaday bacda towbati يعني التوبة الدبديد دعي ماي ولا يسقط باقي الحدود التي لله تعالى كزينة وسرقة بعد التوبة كدعي ماي بعد توبة وحكو تعلقا لا يسقط ظاهر إسكايلالي بعد التوبة وزينيستو أما وحدا لو متشيدو وفهم وحا لقى فهم وكذلك دي قصاصتي قفكي ودلو عمدا ودلو قصاصي سكدعي مايسو حولو قاتي ولا قربا نسوي عليها دو بابير مقدوقو دي بلا قرب وفهم waxa laga fahmay min qowli uri wa ukhida bi dhammi awwalihi bil huquq xuquuqdi baa marka lagu qaban ee allati xuquuqda tatacallaq ku tacalluqda bil aadamiin bani aadam waxa iyaduna lamida xuquuqda ilaahay uu leeyahay sida kafaaraadka iyo zakadii waxyaaba noocaas haduu qof dilo kafaaradii toobadkeenka oo qaaticu dariiqnimada ka toobad keenay kaga dhici mayso waana xaq ilaahay وذلك قصاص وهي حقوق بني آدم كسا قصاصتي وحد قذف ورد مال حول سعيلته أنه لا يسقط نعماء الكورك التعلق وحير وفيم وحل يفهم من قوله وأخذ بالضم أولي بالحقوق التي تتعلق بالآدميين أنه بالغ فهم لا يسقط إنان ودعهين أنه أرم كينو لا يسقط إنان ودعهين شيء قاسي منها حقوق بني آدم كميدة عن قاطع الطريق كي شفتها إنه كدعهين بتوبته توبة كين كسنان كدعهين وهو حكم كنا كذلك السيد هذا الكيس اللي فهمه ويامور فصل في أحكام الصيال وإتلاف البهائم فصل كانوا يحكوا ساب سيهاي كهرر كأه عيد ويرر كل نقضة نفتودا مال كودا ما عرض كودا إيما يران كوحو بابي أحكام توليه ومن قفك قصيد اللو قستيه بالضم أوله أي اللو قستيه السقع أما ده السقع بشيء دور نفتيس أما مالكيس بأذن نبلو لقستيه في نفسي نفتيس
ama naf cid kaleba waa la mid iyaduna la soco aw maalihi ama maalkiisa dhib loola qasti ama maal cid kale aw xariimihi ama dumarkiisi ama dumar cid kale oo idaafada nafta isaga loo idaafeeyey iyo maalka iyo xariimku qeyd maaha la soco oo nafsu gayrihi iyo maalu gayrihi iyo xariimu gayrihina waa la xukmun bian saala arrintaasi waa mid lagu suureysanayo bian saala inuu ku soo xadgudbay calayhi isaga shaksun qof qofkaasoo yuriidu doonaya qatlahu dilkiisa aw akhda maali ama maalkiisa qaadashadiisa ayuu doonaya waa in qalla maalku haba yaraadabe aw wata xariimiya ama wuxuu doonayaa inuu kufsado ama ka zinaysto dumarkiisii oo faqaatala dagaalama can dalika ay difaacan can dalika difaacu difaacayo nafta ama maalka ama cirdiga sababtii ay can nafsihi uu difaacayo naftiisa aw maali ama xolihiisa aw xariim ama dumarkiisa oo qatala dila asaa'ila kii kusoo xadgudbay calaa dalika kaa la sheegay kusoo xadgudbo nafta ama maalka ama dumarkaa dafcan difaacis awgeed u dila lisiyaali xadgudubkiisa uu difaacayo falaa damaana wax magdhowi caleyhi dushiisa ma aha biqisaasin yani qisaas lagaga magdhowdo qofkaa dilkiisii walaa diyatin iyo diya in lagaga magdhowdo walaa kafaaratin marka walaa ithmin caleyh wax dembigana dushiisa maaha way rasuulku muxuu yihi man qutila duuna diinihi fahuwa shahiid ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد marka mar haddii shahiid lagu tilmaamay ila shahiidku jihaadka uu ku amrayay kuwan inuu difaaco ku amrayay ismana qabanayaan qofkii wixii loo diro la dhaa qabo naftaada difaac maalkaaga difaac dumarkaaga difaac haddana difaaca dhibka aad ku geysato waa lagaa magdhabaya isma qabanayaan mar haddii la amray difaaca wixii ka dhasha magdhow lagama weydiin karo lama qisaasi karo mag lama weydiinayo waa kada kafaaro lagu yeelan maayo hadduu xayawaan aha waxaa soo weerareena ama addoon u ahaana qiimihiisii lagama rabo marka halkaa kolley tafaasiil baa ku yaro jirta oo tafaasiisha ku jirta waxa weeye saddexda aynu kala qaadno nafta haddii naftiisa loogu yimaado iyo haddii maalkiisa loogu yimaado iyo haddii dumarkiisa loogu yimaado saddexdaasaynu kala qaadayna naftiisa cidda ugu timi hadday gaal tahay inuu iska difaaco waa waajib siduu iskaga difaaci karayo oo inuu isduleeyo oo gaal uu isu dhiiba ma banaana tayada meel inoogu tiiri cidda soo weerartay waa muslim muslimkaasi mid macsuum oo dhiiggiisu ilaashay haddaanu ahayn isagana inuu iska difaaca waa waajib sida zaani muxsana soo weeraray ama taariku salaad baa soo weeraray inuu iska difaaco waajib weeye amiir qawamaha waa laadee waaye waxaa soo weeraray muslim macsuuma dhiiggiisu ilaashay inuu iska difaaca waajib maaha waxa u bannaan inuu isu dhiibo intaan dili lahaa isagu hay dilo rasuulku alayh الsalatu salam wuxu uhi kun ka khayri ibni aadama labadii ilmo aadam koodii khayrka badnaan noqo ka khayrka badan keebu ah kii walaalkii markuu doonay inuu dilo isdhiibay dee gacmo taagay yidhah inuu ku dili maayo soo war cad maa markaa gaal baa soo weeraray muslim hayr macsuumaa soo weeraray bahiimaa soo weerartay xayawaan inuu ma war ninka hebel awrkiisu niyo waa awr aad u fiicano ka maarmi maayo aniga hay dile waxba aanu awrkiisa dili maayo waa la gowrici karaa xayawaanka si nafta bani aadamku u noolaato sooma inaga dee intaaba qalanayna markaa siday suurtagal u tahay in xayawaankii la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo in naf bani aadam ay goodo maya ma jirayso taas markaa naftiyadu waa taas waayo xaalada ay ka soo reebeen baa jirto ay idhahdaan xataa muslim macsuumi hadduu soo weeraro inuu isdifaaca waajib bay ku timi xaaladaha waxaa ka mid a caalim weeye kelidii wax caalimaba arlada isagaa jooga dadka hadduu ka dhinto cilmigiibuu la dhimanaya jahli bay isugu baxayaan inuu isdifaaco weeye ama waaba ninkii madaxda ahaa ee ummadda u talinayaba
ay kuwa muslimiin soo weeray inuu iska difaaca waajib bay ku tahay inuu isu dhiiban banaana ama waa nin geesi oo soo majeestaayo jihaadka ku fiican oo hadduu muslimiinta ka dhinto meel baa ku banaanaanaysa ku soo qaawanaanaysa waay laakiin xaakimku عثمان بن عفان بس هو اسمه دفاعي بل إلا الدفاع حتى هو الدين كهدي دفاعي سيفتنه وين كذا لا يصير دفاعه ويسكت كرا كان قصة عثمان بن عفان لبدو يكتشران إن ضدك قفك صور ردي مسلمين إنه يدفاعين أنا واجب كويس صحابة دي كان عثمان كمان ينكرنا رنكاس ومركز واي بأنصار وين كسر حد قد بي واي هاي maalkii baa yimi soma maalka isaga cidna beenad ka difaacda waajib kugu maaha way ku banaantay maalkaaga inaad difaacdo laakiin waajib kugu maaha gaal iyo muslim cidii kugu soo doorato ar qaado oo naga tagmad ku oran karta laakiin aad ka difaacataa hal kun shilin ha noqdee 500 shilin ha noqdee lacagteena inta u yar way ku banaantay haba gaadhabada inaad ku dishabeen dumarkii baa yimi dumarkii baa la soo weeraray kuwaagii ha noqdaan ama dumar kale ha noqdaan ayaa doonayaan inay ka zinaystaan iyaga waajib weeye in laga difaaco mana banaana laakiin kuwaaga aad kuba dhimatid inaad difaacdid weeye waajib bay kugu tahay kuwa kalena waajib kuguma aha haddaad ku dhimanayso inaad adigu badbaadaysaa dadka kale nafahooda iyo maalkooda iyo dumarkooda inaad difaacdo waxa shardi u ah difaacaasi inuu kugu waajibo waxa shardi u ah inaan adiga ku sahayanayn waay wuxuu yihi waxaa la raakibid daabata halka wuxuu kaga hadlayaa hadda la soco oo xayawaanaadku waxay geystaan iyo magdhowgiisa waa la kaga hadlaya wuxuu yihi waxaa la raakibid daabati qofka daabadda saaran inta badan dee waxay ka hadli jireen waxa nool ay gaadiidka markaa la isticmaali jiray gaadiid nool buu ahaa gawaadhida iyo waxaan maanta jireen insha allah inuu haleeshiin doona iyaga laftooda maanta shareeco laguma xukumo dee waddankeena waxay gawaadhidu geystaan in badan si shareecada baalmarsan baa loo xukumaa waan tilmaami doonaa daabadda ka saaran faraskii awrkii dameerkii waxaa la mid a ka dabada ka wada waxaa kaloo la mid a ka hogaaminaya labadaasina waa la mid sawaan waxa isku mida kaana haya ka daabada saaran maalika kii lahaa aw mustaciiraha ama kii soo amaanaystay aw mustajiraha ama kii kiraystay aw ghaasiba ama kii soo dhacayba ama kii amaanaha loogu dhiibtay ama kii rahan ahaan u haystay damaanu ma shay magdhowgii baa lagu leeyahay atlafatu ay baabiiso daabatuhu daabada gacantiisa ku jirta daabada uu leeyahay ma ila ruu kugu sheegay inuu noqon karo istaajir iyo mustaciir kuwaas daabada gacantiisa ku jirta waayo لأنها منصوبة isaga loo nisbeynaya loo tiiriyo waxa la leeyahay hebel baa saara hebel baa wadi hebel baa hogaaminay marka awr baad hogaaminaysay qof buu haraatiyay adaa lagu leeyahay mar hadaad hogaaminaysay dabadaad ka waday ari buu ku tuntay adaa lagu leeyahay waad saarayd waxbuu jiiray ama qaniinay ama haraatiyay adaa lagu leeyahay hadee adaa markaa xukumaya moogta neefki mar hadaad dabada ka wado ama aad hogaaminaysa ama aad saarantay waayo shardi waxa uu qofkii waxa la inaanu taqsiir sameyn gaabin hadduu wadadii dhigay xoolo marayeen marka waxba laguma laha waxa kale iyadoo dhici karta haddii ay cidi gujiso deetana neefku waxa raatiyay oo cid haraata wax ku yaalo cidii gujisay baa lagu yeelanaya waxa la mid ah iyaduna haddii ay cidi waxa weeyaan didiso awr baad wadatay waad saareeday doonaysa ama faras qof baa intuu ka hor yimi mara u riday deetana uu isjimbacayo dib uu noqday ama dhinac buu u bariiqday cid buu jiiray ama waxyeelo u geystay cidaas lagu leeyahay adiga lagu wala sawaan waxa isku mid ah kaana haya al-itlaf baabintaasi biyadaha gacanteeda mid ku xaasilay halkan jeenigii baa yadda looga jeeda jeenigeeda aw rijliha ama lugteeda
aw gayri dalika ama meel kalaba dee sida afkeeda ama madaxeeda mar haddaad dabada ka wada amaad hogaaminaysa amaad saarantay meeshay doonaysa waxyeeladaa ku geysatay adaa lagugu leeyay walow baalat hadday kaadido aw raafat ama ay saalayso biariiqin ay fii ariiqin wado dhexdeed oo fatalifa uu baaba'o oo waxyeella ay gaadho bidaalika kaadida ama saaladaa sababteed nafsu nafi ay baabaado aw maalun xoole ama labadooduba falaa damaana wax magdhow laguguma laha waayo wadadan waa wado xoolaade xooluu maraan dameeraha mara fardaha mara geelaa mara way ka duwan tahay haddii wadadu wado xoolaadaan ahayn ood soo mariso wadadii xooluu mari jireene magaalo dhexdeed noqota meel kalaa noqota ayaad marisa xoolii baa ku saalay ama ku kaajay deetana cid baa siibatoo jabtay ama dhimatayba adiga waxba laguguma laha waayo dee neefka xoolaha lagama ilaalin karo inuu kaajo ama uu saaleeyo wadadana dee lagama celin karo wadadii ay marayin laakiin laamiyadan gawaadhida loogu talagalay ninka maanta geel mariya geel uu ku kaajo ama uu ku saaleeyo dabeetana arintaasi dhibaata ay ka dhalato qofkii geeli lahaa waa lagu yeelanaya waayo tan lafteeda khilaaf baa ku jira xataa madhabka dhexdiisa oo culimada qaar waxay rajaxayaanba wadada ha loo ogolaado xoolahan inay maraan laakiin waxaa shardi u ah salaamatu alcaaqiba in maristoodu ay ciribteedu ay tibad qab marka hadday dhibaata ay ka dhalato maga dhabayaan laakiin sida muctamadka madhabahan baa sidana gawaadhidii u kaalay neefkii xoolaha ahaa qofka watuusoo lama odhan ayaa lagu leeyay wuxuu geysto ka wataa kii lahaa ha noqdo mid soo ammaanaystay ha noqdo mid soo dhacay ha noqdo mid soo xaday ha noqdo mid ammaanahan loogu dhiibay ha noqdo mid soo kiraystay ha noqdo kii waday unsoo laguma leh macnaheedu waa maxay qofkii lahaa waxba lagama weydiinayo kaa gacantiisa uu ku jira wax laga weydiinayo gawaadhiduna saasoo kale waa la mid qofka wada ayaa wuxuu geysto lagu leeyay ha kiraysta kaa wadaa ammaanahana loogu dhiibo waxa weyaan ammaanahaan qofkii laha ugu hayo ha toobal caaraysto ha soo dhaco ha xado darawal ha ka hado mushahar ku qaata qofkaa wada ayuunbaa lagu leeyay qofkii lahaa waxba looguma noqon karo maanta dulmiga wadankeena ka jira waxaa ka mid a ninba qofba qof gaari ka ammaanaysanaya cid buu jiidhaya waxaa la odhanaya ninkii gaariga lahaa iyo kan waday ha loo qaybiyo ama gaariga uu ka shaqeeya darawal buu ka yihi hadduu doono wuu la baxsanaya qofkii lahaa iyo kan waday ha loo qaybiya la odhanaya waa qaanuun iska bariga dhexuu iska socda xataa xeer qoran maaha sida lay sheegay oo dejisan maaha shareecana waxay dhigaysa maaha marka dad fara badan baa dulmi ahaan waxaanay iyagu dawaabtoodii oon gacantaba ku jirin gaadhigiisoo gacantiisa baan ku jirin isagoo aanu wadinba dhibaato uu geystay maanta dusha laga saaraa markaasaa weliba isaga ku koobnaan mayse haddana reerkiibaa dulmigu ku dhacaya la odhanaya magta soo ururiya arrinta noocaasi markaa in meesha laga saaro weeye waxyaabaha ay keentay waxaa ka mid ah arrintaasi in dadkii gawaadhida waday aanay lahayn ay iska fudaystaan dhaaan mar haddii aniga unaan magta la weydiinahayn aniga iyo kii lahaa naloo qaybinayo waa iska sahal waa 50 halaad baa igu soo hagaagaya hadduu yahay 50 kana dee reerkii baa halkan u fadhiya haddii uu gabadh yahayna dee waaba 25 ba dee aabbahay baa bixin karaba marka dhibaatada noocaas way dhashay ayib gawaadhida cidda dabada qabsata ama gaadhigu halkaa iska taagan jiidha qofkii gaadhiga laa waxba laguma laha bal xoolaha nool laftooda soconaya mar haddii qof gacantii aanay ku jirin waxay geystaan cidna laguma laha gaar ahaan waktiga la sii daayo curfi ahaan habeenkii waxay geystaan qofkii laha waa lagu yeelanaya asalku habeenkii waa in la xareeyo sooma laakiin maalintii waxay geystaan haddaanu dee neef sidiisa kale u dhiblow aanu hayn oo ay waajib ahayd inuu dadka ka xareeyo waxba laguma laha rasuulku wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam albi'ru jubaar walcajmaau jubaaru waa hadur weeye xeelka ciddii ku dhacda iyadu doonata cidina aanay ku ridin iyo mayeedhaanku waxay geystaan والله أعلم وأحكم بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما